بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. halkan waxaan ka galaynaa walaalayaal casharadii taxanada noo ahaa ee ku saabsanaa dugsi sare gaar ahaan galaaska afaraad ee dugsiga sare tamriinaat liluqati alcarabiya fi safi الرابع الثانوي layliyaasha ee ku saabsan luqadda carabiga galaaska afaraad ee dugsi sare layligiisa alwuxdatu اluulaa cutubka koowaad addarsu الثاني casharkiisa labaad cawaamil الnahdati اladabiyati fi اlcasri الxadiid sarokaca adabka cawaamishi keentay casrigan hadda alla jooga xadiidka ayaan ka hadlaynaa hadduu ilaaha idmo. nashaad itnayn waxqabadka labaad waxa weeyaan nuciidu qiraa'ata annasi bihadafi alfahmi waistikraaji almutaraadifaati walmutadaadaat. waxaan ku laabanaynaa cashirkii dib ugu noqonaynaa ujeeddadu ay tahay fahan in la fahmay iyo in la soo saaro ereyada mutaraadifaadka ah iyo kuwa mutadaadaadka ah. mutaraadifaadku macnihiis waxaa weeye waa kuwa isku midka ah, mutadaadaadkana waa kuwa ka soo horjeeda waaye. marka mutaraadifaadka haddaan ku hormarno waa halkan hoostiisa waxaa ku qoran alkalimatu maa yuraadifuhaa, almutadaadaadna waxaa ku qoran alkalimatu maa yudaaduhaa ayaa ku qoran. alkalimatu aan ku hormarno marka kuwa mutaraadifaadka aan ku hormaraynaa. alkalimatu iyo maa yuraadifuhaa waxa ka soo horjeeda. alxadiid waxaa ka soo horjeedayaana dhihin alkalimatu macnaha cafwan alkalimatu maa yuraadifuhaa waxa la midka ah. alkalimatu maa yuraadifuhaa waxa la midka ah. alxadiid waxaa la mid ah aljadiid cuseyb baa la mid ah. daamis waxaa la mid ah mudlim ayaa la mid ah. baraza waxaa la mid ah dahar ayaa la mid ah. tadriis waxaa la mid ah tacliim. suquud waxaa la mid ah inxidaad. mutadaadaat aan u nimaadno marka ayaga almutadaadaat. mutadaadaat waxa weeyaan alkalimatu iyo maa yudaaduha wax ka soo horjeeda. alkalimatu maa yudaaduha wax ka soo horjeeda. annahda waxaa ka soo horjeeda oo sarukaca inxidaad burbur. addacfu tabaryari waxaa ka soo horjeeda alquwa awood. bacdu waxaa ka soo horjeeda qablo ka soo horjeedo. subaad oo hurda waxaa ka soo horjeeda yaqda soo jeed. muslim waxaa ka soo horjeeda kaafir ayaa ka soo horjeeda. nashaad saddex waxqabadka saddexaad nastacmilu alkalimaati alaatiyati fi jumalin min cindina. waxaan isticmaalaynaa eryadan soo socdo jumlooyin agtanada ah baan isticmaalaynaa. eryadan 1 2 3 4 5 meesha noogu qoran tahay way banaanaayeen booskooda. marka eryadan meesha ku qoran baa dhihi lahaa meeshii ku qornaayeen nafaa'is kunuus ihtimaam bicta kaafa saasay ku qornaayeen. marka eryadan ayaan gelinay jumlooyinkan si ay u noqdaan erya faa'iido leh. nafaa'is waxaan gelinay kutub ulfiqiyati nafaa'is ulkutub. kunuus waxaan gelinay wa min kunuusi alardi waxaan gelinay aldahab. saddex alihtimaam alihtimaamu bilcilmi jamiilun jiddan ayaan gelinay. afar bictha waa ergey waxaan gelinay najaxat albicthatu alcilmiyatu ayaan gelinay. shan kaafa addowlatu mas-uulatun calaa kaafati araadiiha ayaan gelinay. lix khiriij oo ah qalinjabiye qofka qalinjabiye ama dugsi sara ka qalinjabiye ama jaamacad. khiriij waxaa weye naxnu anagu khiriijuuna kuwa qalinjabiye ayaan nahnay min asafi araabici thaanawi iskuulka saf galaaska afaraad ee dugsi sare ayaan ka qalinjabinay. toddobo nahji waa wado waxaan gelinay eryadan yuctabaru manhaju dowlati soomaal nahjan khaasan biha. waxaan gelinay nahjadaas waxaan gelinay ereygaasaan gelinay erey faa'iidon leh noqday. sideed adnaa anta adnaa mustawan minii ayaan gelinay ereygaas jumlada adnaa ayaan dhexgelinay erey mufiida ah baan dhexgelinay kelimadaas. halkan waxaa weeyaan na'ti waxaan la imaanaynaa bijumuuci lmufradaati ereyada jamcooda ayaan la imaanaynaa biisticaanati nasi saabiq anagoo kaalmaysanayno qoraalkii lasoo dhaafay. qoraalka cashir ku jiran baa la kaalmaysanaya meel kale lama aadayo. waa kana mufradaadkan qoraalkii ku jira jamcoodii ayaa la raadinayaa. 1 attaqliid waxaa la jamciisu yahay taqaaliid dhaqamo. shitiid shataa sidoo kale. daar waxaa weeyaan asna jamciisa duwar waaye. madbacatun waxaa weeyaan jamceeda madaabic. maktaba waxaa weeyaan makaatib. majmac waxaa weeyaan majaamic. lisaan waxaa weeyaan alsina. majallatun majallaat. halkan waxaa galaynaa nashaad 5 nabxathu fi fiqraati darsi can musطalix almunaasib likulli min atacriifaat. waxaan ka baaraynaa halkan jumlooyinka cashirka ku jiro kuwii loogu talagal musطalix munaasabka u ah tacriifkooda mid kasta. halkan meesha number 1 waa maqaneed waxba kuma qorneen. number 2 waxba kuma qorneen hoostiisa
nahda sidoo kale waqaa'ic sidoo kale masriya kuma qorneen turaad kuma qorneen makhtuud kuma qorneen istishraaq kuma qorneen todobada eray way ka maqnaayeen tacriifkoodan mid walba munaasib ku ayaa la rabaa in lagu hor qoro النهضة داون ما تعريف كيس وحويا النهضة التغير الذي ينقل الأمم من سيء إلى حسن ومن ضعف إلى قوة بتعريف سنغنيا اللبو انحطاط وحويا هو بضويه التغير ويه اسبدل الذي ينقل الأمم صور الريان من حسن وناك إلى سيء حمان ومن قوة أود بكسر الريان إلى ضعف تبريري أو بربر باكل عاي وحكو حوي نمبر صدع النهضة الأدبية سركع أدبك ارتقاء فنون الأدب أو بعضها شكلا ومضموما أفر الوقائع المصرية ماشا مناسبة ماشا سوي بنانيت مركا تعريف كان لكيني يعيد بوسكا اسكاله هي أول صحيفة صدرت في الوطن العربي وصحيفة دي وحويان وهو الرسائل لغسو سارة وطن كعربت جرائد وهو الرئي أما ورقيس وهو الرئي لغسو سارة وطن كعربت وحوها الوقائع المصرية اللورنجري شن التراث رقمه هو ما خلفه القدماء من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون تراث وحالي هذا وحي أي دتك قدماء هو رأي كتغين الريبين وأح رقموين يعادوين يعلمي إيوه فنون إيوه آداب توديسون إيوه لميدا وسوغان تأه يالي هذا وحاس دور قرني يالي صدح بقول أفر بقول كن إيوه لميدا يالي هذا نمبر محاوتي ما دا ندوي لا يكون سمي يقول هاي الليح مخضوط وفرقوري farguri dadku dhahaan waa qoraalka gacanta lagu soo guuriyo oo meel dhow in muddo meel yaalo waa asna qarni ah wasiqatun maktubatun wa dokumenti la qoray bi khat yad gacanta lagu qoray badalan min dibaaciha bil madbacah iyadoo aan lagu qorin madbacad ayaan lagu daabicin hada madbuucin baa lagu daabacaa waagi hore qalin qori baa kitaabta wax lagu guuri jiray lagu qori jiray waagi hore number 7 al istishraq وتعريف كيسو نغنيا دراسة تسعى إلى التركيز على مجالات محددة في حياة الشرق والمسلمين خاصة الكاس تعريف كيسو نغنيا الليلية أن سوغورني عشرك انت سنوغو هاي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر ذاك المصور نادو لا إدمه هاي خير خيرا سوءنا وبالله التوفيق وإلى اللقاء الآخر